gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya wafdi hogaaminaya ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Faafahinta warkan waxay noo hayay Maxamed Ibrahim Ahmed. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa gaaray wafdi hogaaminaya gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyada oo si weyn halkaas loogu soo dhaweeyay. wafdiga gudoomiyaha oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan aqalka sare ayaa garoonka diyaaradaha Ugaasnoor ee magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Dhuusamareeb. ujeedka wafdiga gudoomiyaha aqalka sare ay maanta ku tageen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in gudoomiye Cabdi Xaashi uu caawa furi doono kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug inta uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaas. Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya tiro 2 jeer ahna soo noqday gudoomiyihii baarlamaanka dawladii ku meel gaarka ahayd ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Shariif Xasan Sheekh Aadan oo mar galaangal siyaasadeed ku lahaa saaxadda siyaasadda Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano, wasiiro, haween, dhalinyaro iyo dadyow kale. madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa loo galbiyay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya halkaasi oo lagu sameeyay munaasabad kooban oo soo dhaweyn ah. Soomaaliya xaalado badan ay soo martay xaaladda maanta lagu jirana kolba waa loo jeedaa waxaan aaminsanahay haddii haddana aan hore loo socdo waan loo gudbi doonaa dhibaatooyinka jiro intii isbedello soo dhacay alxamdulillah ilaahay amriga noo gaarsiiyay waa joognay waxaana la isku bedelayaa maalin walba si nabad ah haddana waxaan rajaynaynaa in kala guurka hadda socdo si nabad ah uu ku dhammaado biidnillahi alkariim ninka ilaahay wax ugu daray oo ilaahay calafkiisa ka dhigan ama kuwa hadda jooga ha noqdaan ama kuwa kaloo imaanaya ha noqdaan inay si nabada ay kula wareegaan dowladnimada maandeed cusubna la helo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacsan tahay. ummadda Soomaaliyeed isjiidii oo kasoo dharagtay waqtiyada dambe dimuqraadiyad qaadatay runtii dadku in afar sano mar ay doorasho dhacdo dadku waana ku qanaceen runtii taas waxa hadda la isku joogo lagu dhaqmaantaas marka waxaan rajaynaynaa 4 sano waa dhowdahay markay dhamaato inay doorasho dhacdo ee dadka Soomaaliyeed ee raali iska wada yihiin isku wada ogol yihiin wada ogol ah mar dhicin waayadan runtii inkastoo Soomaaliya dhibaatooyin badan laga sheego Soomaaliya mar dhicin waayadii had u dambeysay doorasho dhacday oo wixii ka soo baxay la isku khilaafo oo la yiraahdo saan ahayd marka waxyaalaha lagu guuleystay runtii doorashada mar haday dhacdo sidii u dhacday dadka oo dhan ku qanacsanaayeen taasna waxa keenaysay doorasho wada ogol ahayd ninka markaas kursiga joogo iyo kuwa banaanka ka imaanayo oo doorashadaas danaynayo isku fursad ay ahaayeen saasayna dadku ku qanacayeen. haddana waxaan maanta rajaynaynaa aan dawladda hadda joogto aan ka codsanaynaa ama aan ka filaynaa inay mid dadka oo dhan fursadooda isku mid ay tahay doorasho dadka oo dhan ay fursadooda isku mid ay tahay ninka joogo iyo ninka maqan oo hadda imaan doono oo America jiro waliba taasooyinka aan joogin markuu imaanayo inay isku fursad ay noqdaan oo wax ay ku kala horeeyaan aysan jirin in walba sidii marka dadka shacabka ama xildhibaanada waqtigaas wax dooranayo aragtidooda ninka ay u maleeyaan in hoggaankaas ku habboon yahay si nabad ah inay ugu dhiibtaan. Soomaaliya intaas ay ku soo hormartay haddana waxaan rajaynaynaa in intaas dhacdo. maxkamadda sare ee Somaliland ayaa qaraar ay soo saartay jawaabna waa codsi u dhawaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi u gudbiyay ku go'aamisay in doorashooyinka golaha wakiilada lagu galo saami qaybsigii doorashadii sanadkii 2005 ka dhacday Somaliland. qaraarkan oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska wararka ee telefishinka Saba ayaa lagu yiri mudane madaxweyne waxaanu halkan kuugu soo gudbinaynaa qaraarka ay soo saartay maxkamadda dastuuriga ah oo ku saabsan laalista dabarka weedha ah
doorashada oo keliya ee ku xusan qodobka 12 faqradiisa koowaad ee xeer lambar 20 bisha 2005 maxkamadda dastuuriga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay aqbashay codsiga madaxweynaha Soomaaliland ee ku taariikhaysan bisha 8 sanadka 2022 waxay laashay weedha doorashada oo kaliya oo ku xusan qodobka 12 faqradiisa koowaad ee xeerka lambar bisha 2005 ee ka hadlaya in saamiga kuraasta goboladu yeelanayaan golaha wakiilada qaabka loo qaybiyay inuu ahaa hal doorasho oo ah doorashada 2005 oo kaliya 3 golaha wakiilada waxa lagu galayaa habka qaybinta saamiga kuraasta goboladu ku yeelanayaan golaha wakiilada ee ku xusan qodobka 12 faqradiisa koowaad xeer lambar bisha 20 sanadka 2005 marka laga reebo inta qodobka laga laalay oo ah doorashada oo kaliya ee ku xusan faqradda hore ee qaraarka inta laga helayo hab kale oo sharci ah oo bedela oo la xidhiidha habka qaybinta saamiga kuraasta goboladu ku yeelanayaan golaha wakiilada ayaa lagu jiray qaraarkaasi ay soo saartay maxkamadda sare ee Soomaaliland. qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay wali taagan yihiin tabashooyinka ku saabsan arrinta saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka taas oo ay ka cabanayaan gobolada Awdal iyo Solo taas oo aan wali xal laga gaarin. dhacay shirkii caadiga ah ee golaha wasiirada waxaana shir gudoominayay siihayaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Mahdi Maxamed Guuleed ajandayaasha qodobadii ugu weynaa ee shirka lagu soo qaatay waxa lagu bilaabay warbixintii amniga oo laga dhageystay wasaaradda amniga oo ay soo bandhigtay xaaladda guud ee amniga guud ahaan dalka iyo gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee guulihii laga gaaray la dagaalanka cadawga argagixisada ee shabaab sidoo kale ajandaha waxa ku jiray wasaaradda caafimaadka oo laga dhageystay xaaladda COVID-19 ama coronavirus guud ahaan dalka Soomaaliya iyo dhammaan gobolada iyo xaaladda halka ay marayso oo ay warbixin ka siiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ajandaha waxa ku jiray wasaaradda gaadiidka oo laga dhageystay warbixintii maamulka gaadiidka oo ay soo bandhigeen ay golaha u soo bandhigeen oo xooga ay ku saarayeen gaadiidka isticmaala wadooyinka caasimadda haddii ay ahaan lahaayeen gawaarida xamuulka iyo dhammaan warbixintoodii ay u soo bandhigeen iyo sida maamulkoodii abraacyada ay marayaan sidoo kaleeto wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxa ay keentay habraaca hoggaanka hubka iyo rasaasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed golaha wasiiradana waxa ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh sidoo kaleeto waxa ajandaha ku jiray wasaaradda maaliyadda oo barnaamijka deen cafinta halka ay marayso iyo shuruudaha waajibka ay tahay laga maarmaanka ay tahay inaan marno ka dawlad ahaan ay soo bandhigtay oo halkaasi laga dhageystay ajandayaashii maanta shirka ugu weynaa intaas ayuu ahaa warmurtiyad laga soo saaray kulanka ay yeesheen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dane iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe kulankaasi oo ka qabsamay caasimadda Puntland ee Garowe madaxweynaha dowladda Jubbaland iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee muddadii ay joogeen shaqooyinkii halka ka socday ay uga qayb qaateen waxaan runtii muhiim ah marxaladahan oo kale markay jiraan in la tashiga iyo wada tashiga uu bato Jubbaland iyo Puntland shirkii u qabsoomay wixii ka soo baxay war-saxaafadeedkii ayaa lagu akhriyay gundhigiisuna wuxuu ahaa sidii iskaashigii hore u socday loo adkeyn lahaa sidoo kaleetana marxaladan hadda dalku ku jiro aragti midaysan aan uga yeelan lahayn arrimaha ku aadan geedi socodka dib u dhiska dalka Soomaaliya runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagaboobi doonaan si wanaagsan oo maslaxadda ummadda danteeda ku jirto wixii halkaa ka soo baxana kulley waqtigeeda ayay ahaan doontaa haddii Ilaahay idinka dhigo waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay oo kulan muhiim ahaa guddiyadii kala duwanaa ee ka qayb qaatana ay runtii aad u lafagureen xaaladda dalku maraya iyo marxaladda hadda ku aadan intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto
dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed intaasaa hadalkayga uga baxayaa. munaasabadan oo lagu taageerayay musharax madaxweyne Hirshabelle Maxamed Xasan Ibraahim Qoone oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku taageerayay Beesha Ciise Mudulood waxaana markaasi hogaaminayay ugaaska Beesha Ciise Mudulood ugaas Cismaan ugaas Cilmi ugaas Cumar waxaana markaasi isaga oo halkaas ka hadlay uu sheegay in ay taageero u hayaan musharaxa Hirshabelle Maxamed Xasan Ibraahim Qoone waxaana uu sheegay in markaasi dadka reer Hirshabelle ay ka sugayaan in uu la yimaado wax qabad muuqda marka waxaad wadiino annaga Ciise Mudulood intaan meesha joogta iyo inta ka dambeysay intaan iyo wakiilka oo macnaha insha Allah gurgeedku ma wada kulanto ma arka waa qaadnay waxaan leenahay si qurux badan wuxuu yiri qoona ayuu qeyrka ku jiraahe hala qaata qaali waayaan marka qoona waxaan leeyahay soo dhawow reer awowga waa ku garab taagan yihiin wixii farsamo oo kalane wax barbaleen male anaga dhama wada joogno adinka dhama wada joogtiin aqyaartii Ciise Mudulood wada joogto wax barbaleen male ilaa waxaa naga go'on anaga oo jecel wiilashayno oo boqolkiiba boqol jecel oo dhibaato ay jirin waxa farsamada ay way iska dhamaa doonaan wax dhib ma jiro adinka waxaan leenahay soo dhawaado kuni gogoor soo dhawaada xildhibaanka madaxweynaha musharaxa waxaan leenahay waxaan ugu duceynaynaa inuu muftax noqdo meel walba uu noqdane macnaha fulku guulo uu noqdo albaabku uu tagane oo dadka ka guuleysto sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay nabadoon Cabdi Xaashi waxaana uu sheegay in markaasi dadka reer Hirshabelle ay uga fadhiyaan hadii uu ku guuleysto xilkaasi in uu la yimaado wax qabad muuqda waxaana uu sheegay in markaasi looga baahan yahay in uu ka duwanaado madaxdii hore ee Hirshabelle soo martay marka qoona waa ku soo dhaweynaa magaca waa magac aad ugu badan dhulka maanta koor ismaana arag wakiil beeleedaan nahay adigana wakiil Soomaaliyeed dadka Hirshabelle dad ma jooga waxaan rabnaa annaga musharax madaxweyne qoona taageerina waxaan u taageerinaa hadduu madaxweyne noqdo iyo haddii uu noqon waayaba dad ehel darisaana ma kala maarano hadduu madaxweyne noqdo waxayna dhiganaa rabnaa bari aan weydiino wax kale kuma taageerino haddaad madaxweyne noqoto bari waxaan ku weydiiyaan ma agtaada dhigto marka taageerada waa iska diidi lahayn haddii aanan waxba rabin waxbaan rabnaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaan Cabdirasaaq Xaaji Axmed Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka waxaana uu sheegay in markaasi musharaxan uu yahay kii ku haboonaa in uu qabto xilka madaxweynenimo ee Hirshabelle waxaana uu u rajeeyay inuu ku guuleysto aan rabno inaad nala qaadaan musharax madaxweyne Hirshabelle وانا هذا حلبانا مدلر حلبان صوها حلبان محمد حسن إبراهيم قونا معروف كواه حلبانك وانين بلد وينه يزونه سكول شيء وانين هاد بلد وينها داس نمرايو ويران ضدك يدقن كوضي يدليدا يستل وكل الدقية يستل كليه قرنا يواه تاريخيا فعلها نكسر دحشقي جوي جاس كلك السنة وعمر يمكن بدنا عمر دافت لها نبي دافت نكسر مريوا عرضه وأنا عطينا مركب باختصار sidoo kale waxaa halkaasi khudbad ka jeediyay madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble oo isna sheegay in looga baahan yahay dadka reer Hirshabelle in ay taageeraan musharaxan isla markaana uu markaasi rajeynayay in wax qabad muuqdo uu la yimaado ninka aan wadnaa waa Maxamed Xasan Ibraahim Qoone oo nimaad wada taqaanaan nin xildhibaan ahaa muddo aad u dheer nin siyaasadda ku dhex jiray nin reer beledweyne nin dadka si fiican u yaqaanana xaqiiqdu waxay tahay waxa iska suuragal anigaan idin la hadlaayo wax laga tabanayo wax inay jirjiraan laakiin haddana saas oo ay tahay xumaan ama maxuu ahaa yacni wax aan la dhaafi karin oo iska dhacay maahane haba yaraatee ee dhib ma jiro balse nin dadka iga aqoon badan oo waxay tabanayaan ka shaqayn kara kalena shaqayn kara aan isleeyahay xataa waa ka farsamo badan yahay oo aan aqoon fiican u leeyahay ayuu yahay ninka aan idin wadno waxaan codsanaynaa inaad nala qaadaan
ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay musharax madaxweyne maamulka Hirshabelle Maxamed Xasan Ibraahim Qoone waxaana uu sheegay inuu u mahadcelinayo dadkii munaasabada ka soo qayb galay isla markaana taageerada u muujiyay waxaana uu ballan qaaday haddii uu ku guuleystay xilka madaxweynenimo ee Hirshabelle inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka ka jira deegaanada Hirshabelle waxaan ballan qaadayaa ummadda reer Hiiraan ama ummadda reer Jowhar haddii aniga taageeradaas aad siiseen oo Ilaahay igu garab galo oo meesha tago in cadaalad iyo midnimo iyo sinaan la helo oo qof kasta xuquuqdiisa uu helo oo jaceelkii dadkaasi walaalnimadii aan soo celiyo idinkana waxaan idin ka codsanayaa in la garab istaago oo la kaalmeeyo oo faatixada lagu kaalmeeyo oo la duceeyo ducada ayaa wax ah diinta ayaa wax ah sharafta ayaa wax ah markii la karaameeyo adinkana aad karaameeyo insha Allah ta'ala haddii Ilaahay yiraahdo